cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray qiyaamaha dowladnimada nabigeena nabadgeliyeen xariis korkiisa haade wuxuu yiri hadii xukunka loo dhiibo dad aan ehl u hayn suuq qiyaamaha culimadu waxay ku fasirteen in qiyaamahaas halkaas aan loola jeedin qiyaamaha weyn ee dunida ku dhamaanaya ma ahan ayuu leeyahay balse qiyaamaha waa maamulka iyo dowladnimada marka talada loo dhiibo dad aan u qalmin loo dhiibo maanta mashaki baa kaaga jira in taliska Xasan Sheekh ee waqtigiisa dhamaaday oo xilka u dhiibo dad aan ehl u ahayn mashaki baa kaaga jira in hoggaanka dalka uu daacadnimadiisii iyo cadaaladiisii iyo xaqsoorkiisii lumiyay miyaysan amaanadu uu dadweynaha u hayay ka dhigin hanti u gaar ah uu leeyahay cid uu doonana uu ku abaal mariyo miyaanan u muuqan in kartidii lagu bedelay xigto shakhsiyadeed iyo abaalmarin siyaasadeed soo lama caadiyeysan laaluushka lunsiga hantida dadweynaha iyo ku xadgudubka xuquuqda muwaadiniinta haddaba maxaa ka baanji kara in taliska qiyaamaha ee uu dhacay waa hubaal in uu dhacay dal iyo dowlad waxaa dhisi kara hoggaan danta guud ka hormariya dantiisa gaarka ah hoggaan xaqiijiya in sharcigu si siman loo dhaqo qofka tabarta yar iyo kan awoodda leh